Djibouti waa wadan yar balse leh taariikh weyn, istiraatiijiyad muhiim ah iyo dad leh dhaqan hodan ah. Waxay ku taalaa Geeska Afrika waxayna leedahay biyo-xireenka muhiimka ah ee isku xira Badda Cas iyo Badweynta Indiya. Waa albaabka Afrika iyo Asia isugu yimaadaan. Haddaba soo dhawaada, subscribe ina soo dhaha, like-tana ha inaga baqaylina, kuna soo dhawaada taariikhda dalka Djibouti. Dadka reer Djibouti waxay asal ahaan ka soo jeedaan qowmiyadda Ciisaha iyo Cafarta. Waxaa la aaminsan yahay in dadkani deganaayeen Djibouti ilaa kumanaan sano ka hor. Djibouti waxay ahayd qayb ka mid ah boqortooyadii Axuum iyo xiriirkii ganacsi oo ay la lahayd Masar, Carabta iyo Indiya. Sanadkii 1884 Faransiiska wuxuu la wareegay dhulka Djibouti asagoo ugu magac daray Côte Française des Somalis, xeebta Soomaaliyeed ee Faransiiska. Djibouti waxay ahayd xarun istiraatiiji ah sababtoo ah waxay ku taalaa marinka Bab-el-Mandeb. Faransiiska wuxuu dhisay tekada Djibouti iyo tareenka isku xidha Addis Ababa iyo Djibouti. Dadka reer Djibouti waxay bilaabeen kacdoon iyo codsi xorriyad ah. Waxaa dhacay afti sanadihii 1958 iyo 1967, balse Faransiiska ayaa carqaladeeyay in xorriyadda la helo. 27 Juun 1977 Djibouti waxay heshay xorriyad buuxda waxaana noqday madaxweynihii ugu horreeyay Xasan Guuleed Abdidoon. Kadib xorriyaddii, Djibouti waxay wajahday caqabado siyaasadeed iyo dhaqaale. Waxaa jiray dagaalo qowmiyadeed gaar ahaan u dhaxeeyay qowmiyadda Cafarta iyo Ciisaha, balse heshiisyo nabadeed ayaa la gaaray 1990-yadii. Wuxuuna wadanku bilaabay kubac dhaqaale iyo nabad siyaasadeed. Djibouti waa xarun ciidan oo ay ku sugan yihiin ciidamada Faransiiska, Mareykanka, Shiinaha, Talyaaniga iyo Jabaan, taasoo ka dhigaysa wadan istiraatiiji ah. Dhaqaalaha Djibouti wuxuu ku tiirsan yahay tekadaha caalamiga ah, adeegyada ciidan iyo ganacsiga Itoobiya oo aan bad lahayn. Magaalada Djibouti waa caasimadda waxaana ku nool dad ku dhow 1 milyan. Diinta rasmiga ah waa Islaam. Luqadaha rasmiga ah waa Carabi iyo Faransiis, balse dadku waxay ku hadlaan af Soomaaliga iyo af Cafar. Djibouti waxay leedahay dhaqan hodan ah oo ku saleysan suugaan, cunto iyo xaflado dhaqameed. Ugu dambeyntii, Djibouti waa wadan yar balse leh awood weyn oo juqraafi, dhaqan iyo siyaasadba. Taariikhdeeda waxay tusaale u tahay adkeysi, halgan iyo horumar. Maanta waxay ku jirtaa wadamada ugu muhiimka badan Afrika oo leh mustaqbal ifaya.